dadwaynahenan baraaruge isbiirsade samaha ugu baaqaye barwaaqa tiigsanaya baadawaan ujeedada nabda'eena wali baraaniyo beelow afliishaaniyay kabayrin karaya baadawaan ujeedada nabda'eena wali baraaniyo beelow afliishaaniyay kabayrin karaya uusan wada baran baabuuraha ka eekaha inta beenka sheegaha igu socoodu baaqaha uusan wada baran baabuuraha ka eekaha inta beenka sheegaha igu socoodu baaqaha bulshada yada mabadaadinayse baarer waxaanu leenahay haysiinineejo jog haysiinineejo bulshada yada mabadaadinayse baarer waxaanu leenahay haysiinineejo jog haysiinineejo ama beriya maalka dambigii ka soo baxa yuusan buura kula noqon yuusan buura kula noqon ama beriya maalka dambigii ka soo baxa yuusan buura kula noqon yuusan buura kula noqon dadwaynahenan qaadaye daddood bartee aqii macalinkoodu derka uga yaalla oo banaayo waajibkooda dadwaynahenan qaadaye daddood bartee aqii macalinkoodu derka uga yaalla oo banaayo waajibkooda gumaysi boodutiyo qaahimbura uduudayaayo bidci khayrka diiganimiyay naqayrin karaya gumaysi boodutiyo qaahimbura uduudayaayo bidci khayrka diiganimiyay naqayrin karaya iyaga bool ku dhacayena ma bayrin karayaan iyaga bool ku dhacayena ma bayrin karayaan
wada baran alquraha ka eekaha inta beenka sheegaha igu socoodu baaqaha uuguusan wada baran alquraha ka eekaha inta beenka sheegaha bulshada maqaalinayse baareer waxaanu leenahay haysfiirineejo jog haysfiirineejo bulshada maqaalinayse baareer waxaanu leenahay haysfiirineejo jog haysfiirineejo ama beriya baalka dembigii ka soo baxa yuusan buura kula noqon yuusan buura kula noqon ama beriya baalka dembigii ka soo baxa yuusan buura kula noqon magaalada oo tababarkooda uu yahay xafladda xiritaanka dowladtuska ugu dambeeyay waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta iyo saraakiisha kale uu ka mid yahay taliyaha rugta madaxtooyada Qardho mudana gudoomiye maadaama aad tahay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada amniga gobolka adiga iyo taliyaha qaybta waxaan idinku soo dhaweynayaa ciidankan oo aan maanta u soo saarnay galabta dowladtusyadii qayb ka mid ah casharadii ay kuliyadda ku qaadanayeen mudana gudoomiye ciidankani waxay qaateen casharo kala duwan waxayna hadda diyaar u yihiin inay shaqo waajibaadka dawliga ay gutaan ay fuliyaan iyagoo dalka iyo diinta iyo dadkaba difaacaya sidaa darteed ku soo dhawaada wabillahi tawfiiq galabta magaalada ee soo bandhigayay wixii la baray iyo saraakiisha tababaraysay iyo taliyayaashooda iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaan hadda bulshada oo nagu xeeran oo muuqdo dhagaysanaya xafladan ama maanta eeganaya bandhigga ciidanku waxa uu soo bandhigay iyo gudoomiyaha gobolka dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi runtii ciidanka maanta halkan ku soo bandhigay waxa wanaagsan ee tababarka waa ka muuqda runtii cid kastoo arkaysay ama cid kasta ee u arki jirtay horeba ciidankii la tababari jiray ciidanka ugu qurux badan oo tababarkiisu runtii aanu kala dhacayn oo ninkii ciidan soo maray uu aad u garanayo ayaa ka muuqda cid walba waa qiiroonaysaa markay eegto sida uu labisan yahay dirayskiisa isku midka ah jaantiisa aan kala dhacayn tababarkiisa iyo wixii la baray oo ka muuqda oo aanay khasaarayn runtii waxaan si gaara ugu hambalyaynayaa macallimiintii ciidankan soo tababaray waa ka gaar ciidamada kuliyadaha kale ee aan arki jiray 6 bilood iyo waxay ku jireen iyo 23 casho 13 casho waxaan u maleynayaa bisha inta ka dhiman baa u hadhay xilligii loo xidhi lahaa maalintaa waxaan rajaynaynaa in madaxda u sarraysa Puntland ay ka soo gasho oo madaxweynuhu ugu mudan yahay maalintaana waa ogaan doonaa waxa ay soo bandhigaan waana nala arki doonaa waxa la geliyay maskaxda la geliyay iyo tababarka ka muuqdaba runtii waxa loo baahan yahay waxa laydin baray inaad ummadda Soomaaliyeed ama Puntland uga faa'iideysaan gaar ahaan
gobolka Karkaar iyo maanta magaalada aad joogtaanoo degmada Qardho waxaan filaynaa waxyaabihiina xoqayay in annaga ugu mudan oo kulliyadda ay ka soo baxeen waa kulliyadii aanu joognay baahida ugu horeysa inay nala daboolayaan waa mahad ilaahay maanta iyagoo isku dhan oo qiimigoodii muuqdo oo tiradoodii joogto oo tayadoodii joogto runtii inay maanta na hor fadhiyaan oo ay soo bandhigeen wixii la baray waxaan leeyahay waad arkayseen ciidanka markaan u sheego magaalada markaynu maraynay sharafta iyo haybadda layna ku soo ururayo oo dadku isjiidayo ma ahayn wax kale awal bayna hebel iyo ina hebel iyo hebel baa laynoo yiqiin cidinayna kuma soo isma jiidi jirin cidinayna kuma soo carari jirin waa haybadda huwantihiin ee dawladnimada oo uu ka mid yahay uniformka sidataan iyo calanka garbihiina saaran ilaalin gooniya iyo sharaf gooniya buu leeyahay waayo waxa layna ku soo hiloobayo ama waxa layna ku soo cararayo ama waxa cid walba filinka uga duubanayso waa haybadda ma ahayn shakhsiyan ma ahayn sidaynu ahaan jirnay dadka kaleba de lama duubto waa ka suuqa wada jooga marka waa inaan dareenno markaynu sidano dirayska waxyaabaha ka caagan oo aad hore tababarka ugu soo qaadateen oo loo baahan yahay waa inaad dareentaan waa mas'uuliyad idin saaran oo dushiina saaran oo la rabo inaad ummadda ugu adeegtaan oo ka dhowrtaan meelaha foosha xun iyo meelaha aan ku haboonayn oo idinkana sharaftiina ku haboonayn dirayska sidataan iyo calanka huwataana aan ku haboonayn oo muqaadaraadku ka jiro oo lagu qayilo oo meelaha biibitooyinka kuma haboona biyay intaasay marka ku siman tahay ninka askariga ahi markuu wax wanaagsan uu fuliyo ninkii soo tababaray iyo ninkii xukumayay kulli sharaf bay u tahay laakiin markii wax kale laga soo waramo adigii xukumayay iyo kii tababaray iyo bulshadaba dhaawac bay u tahay runtii marka waxaan filaynaa inaad noqotaan kuwa u qareema ummadda Soomaaliyeed kuwa u qareema Puntland kuwa u qareema gobolka Karkaar oo hadda ku dhaqantiin saasaan filayaa bulshada waxaan leeyahay waxa laga yaabaa saacadaha inay ku soo wajahan in ciidankani gobolka ka howlgalo waxaan rabnaa sidii naloola shaqayn jiray in loola shaqeeyo in loo diyaar garoobo waxa bulshada inta wanaagsanna wanaag baa lagula shaqaynayaa waxaan rabnaa ciidankaasi inuu ka shaqeeyo wixii xun oo magaalada siyaada ku ah oo ummadda dhibaya oo muslimka dhibaya oo diin ahaan ku xun inay ka qabtaan nagulana shaqeeyaan shacabkuna nagula shaqeeyo farta ku fiiqo meeshii dhibi ka jirto muqaadaraad ka jiro balaayo ka jirto ma garanaysaa wadanka ku xumi ku jiraan abaar baynu ku jirnaa waxa la rabaa in ciidankani u qareemo dhibaatada iyo abaarta ka jirta oo ugu qareemo cid walbi inay ku bixiso wixii ay u heli karto haddii loo baaho in dhiig loo shubo inay u shubaan haddii loo baaho in lacag la iska jaro la siiyo in loo jaro haddii loo baahdo in la soo shaqeeyo ciidan la kaxaysto ciidanku isagoo qatan inuu shaqeeyo waayo ummadeennii baa meeshaa ku dhibaataysan abaar baa heshay caama waa ognahay maanta inteennan cid dhaantaa ma jirto ninba marka wuxuu ku kordhin karo ninna waa inuu habeen u qado oo ilaaliyo oo soo guro oo meeshii lagu ururin karo oo loo tashado la keeno ninna waa inuu shilinka hadduu u helo u jaro in ay galabta ku soo bandhigeen magaalada Qardho qaybadeeda ama laamiyadeeda kala duwan ee gaardakacayaar ay ku muujinayeen aqoontooda iyo kartideeda iyo wixii la soo baray aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad waxa mahadda iska leh taliyaasha iyo macallimiinta runtii inta joogteen idinku maskaxda idin gelinayay waxbarashada maanta aad soo bandhigteen marka waa u mahad celinayna waxa leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin idinkana waxa idinka muuqata in wixii la idinku shubay aad ka soo baxdeen runtii ciidanka birmadka madaxtooyada mar labaad waa u mahad celinayna waxaan leenahay ciidanka waxa u tihiin murad sida la socotaan galabta markaad soo mareyseen
waxaa la xasuustay ciidamadii runtii jiri jiray ee Soomaaliya qof walba oo wax garanaya ama xilkasa laamiga dhinaciisu tanag iyo wuxuu soo qaatay iyo ul isagoo idin garaacaya runtii haybada iyo sharafta aad mudan tihiin marka halka waxa idin ka cad in aynu u oomanahay dawladnimadeennii in la soo celiyo runtii hadeenu Puntland nahay waxa weeye qaybo kala duwan ayaa ka soo baxay xeriyooyinka la dhisay oo runtii intii halkii dawladan uu hogaamiyo madaxweynaha Sidi Cabdullaahi Dani oo wax weyn ka qabtay xeriyooyinka la dhisay xeriyahaasna ay ka soo baxay cutubyo fara badan oo maanta ku kala jira ama meelaha Puntland gudaheeda ha noqotay ama xuduudaha ha noqotay jooga marka waa ilaahay mahadiis idinkuna maanta waxa tiin dufcadiisteedaad ee loo soo xirayay xilliga aynu ku jirno marka aad baa u maasantihiin tan labaad waxa rabnaa ciidanka waxa loo dhisaa inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa uu anfaco waxna u qabto waxaan rajaynaynaa inta aad joogtaan halkan inaad wax badan ka qaban doontaan amniga magaalada Qardho oo runtii baryahan ay ku soo kordheen ama ha noqoto khamriga ama xashada ha noqoto inta joogtaan waxa rajaynaynaa habeen iyo maalinba in laga hawlgali doono qorshana la samaysan doono sidii loo xasilin lahaa magaalada waxa xun soo gelinayana talaabo laga qaadi doono hadii alla yiraahdo sharafay noo tahay ciidanka inta leeg oo magaalada jooga in aad galabta aynu halka ku wada kulanno runtii xilligan jilaal baa jira waxaan xasuustaa xilligii fatahaada biyaha ee halka ku dhacay magaalada Qardho xeerada xorgobol ciidan baa ku xiriisnaa hadii aan ciidanka habeenka joogo wax badan oo khasaaraha magaalada gaari lahaa laakiin ilaahay mahadiis baabuurtoodii iyo ciidankii ayaa u soo gurmaday wax badan ka qabtay habeenkii oo dhan biyo marayeen baabuurtii waaweyneed oo ciidanka ayay dadka waxay kaga soo daabguulayeen magaalada dhexdeeda ama meelaha biyuhu ay marayaan marka sharafta waxa iska leh ciidamada runtii waxa rabnaa marka hawlgal baa la qaadayaa maamulka gobolka oo dhan waxa dadweynaha halka baaq uga direynaa in la qorsheeyay in magaalada nabadgelyada laga shaqeeyo in magaalada aan loo ogolayn in lala dhaxmari karo wax qori haba yaraatee shacabku ninkii qori haysta gurigiisa ha dhigto laakiin cidii lagu qabto isagoo magaalada dhexdeeda qori la maraya aan ahayn ciidanka dawladda oo u xil saaran amniga magaalada in isagana talaabo laga qaadi doono qorigaas la wareegi doono hadii aan yiraahdo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka shacabka in ay dhagahooda ku dhici doonto baaqa aan u dirayno shacabka Qardhoona waxa leenahay dhamaan waxa rabnaa inagoo isku duuban ciidan maamul shacab in nala shaqeeyo maamulka iyo ciidanka inta wala shaqeeyo meel looga soo wada jeesto wixii xun insha Allah waxaan rajaynaynaa maalin dhow waa la idin xiri doonaa maalinta la idin xiri doono hadii alla yiraahdo in madax fara badan ay ka soo qayb gali doonto dardaaranka weyna uu maalinta noqon doono marka aad iyo aad waxa idinka mahad celinaynaa ciyaarkii ku soo marteen magaalada Qardho gudaheeda iyo sida shacabku idin taageersan yahay waxa la Soomaalidu waxay tiraa war dhafoor buu ku yaalaa waxay la idin qabay wadada ku soo madhay hadii alla yiraahdo mar labaad maslaxa weyn mahad celinaynaa waxaan u mahad celinayaa macallimiinta iyo maamulka xerada xorgoble oo runtii farxad noo ah galabta ciidanka tayada leh in la soo saaray